maxaa keenay in la baabi'iyo natiijada doorashada kursi ka mid ah kuraastii Jubbaland? war qoraal oo ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka ayaa waxaa la baabi'iyay natiijada doorashada 11 kursi oo ka mid ah kuraastii doorashada xildhibaanada ee ka dhacday xarumaha shanta maamul goboleed. Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir oo Kismaayo lagu soo doortay ayaa ka mid ah xildhibaanada kuraastooda la laalay. kursiga la laalay ayaa ahaa mid muran badan ka taagnaa. haddaba waa maxay muranka ka taagnaa? kursiga la laalay ee beesha ee yilay Jubbaland waxaa u tartamayay Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir oo ahaa xildhibaan 2012 ilaa 2016, Cabdiraxiin iyo Maxamed Mukhtaar oo ah wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka. waxaa jira iskoor imaad shakhsiyadeed oo u dhaxeeyay Maxamed Mukhtaar wasiirka batroolka iyo Cabdi Cali Raage gudoomiyaha guddiga dowlad goboleedka hirgelinta doorashooyinka dadban ee Jubbaland. iskoor imaadkaas shakhsiyadeed oo ku saleysnaa arrimaha shidaalka. Raage waxa uu ahaan jiray ninkii Jubbaland u qaabilsanaa arrimaha shidaalka ka hor inta aanu noqon gudoomiyaha doorashooyinka. 11 November 2016 waxaa soo shaac baxday in Raage wax ka bedelay ergadii 51 ahayd ee beesha Gaaljecel ay ku heshiiyeen. taa waxay dhalisay walaac badan. 19 November 2016 waxaa la qorsheeyay in la qabto doorashada kursiga, balse goobtii doorashada waxaa soo xaadiray ergadii hore iyo erga cusub. halkaa waxaa ka dhashay buuq. iyagoo ilaalinaya amniga iyo xasiloonida ayay ciidamada ammaanka Jubbaland waxay kala direen ergooyinkii meesha joogay. ugaaska beesha Gaaljecel oo ka mid ah 135 oday dhaqameed waxa uu ka yiri arrintan waxaan sugaynay in 51 ergo oo ay beesha keensatay inay codayn doonaan. saddexda musharax cod ay ku kala bixi doonaan, balse maanay dhicin. 51 xubnood way ku heshiisay jufadii kursiga lahayd ee beesha Gaaljecel doqondiida. alxamdulillah 51 waa la kala qaatay sidii walaal loo ahaa wax loo wadaagi jiray loo wadaagay. waxaan marka aad iyo aad dhagta iyo waxa aan ka sugaynay kursigaasi xilliga doorashadiisa ay dhici doonto iyo ciddii ilaahay u calfo. 3 musharax ayaa u tartamaysay iyo ciddii ilaahay ka soo saaray ayaan u ducaynaynay inuu ilaahay barakeeyo. meeshii waxa inaga soo gaartay cabasho iyo waxyaabo badan inay ka jiraan. runtii arrintaasna waa ka xunnahay runtii maadaama waxaan nidaam leeyihiin guddigii doorashooyinka heer federaal iyo heer gobolna oo meesha ku sugan yahay 51 ay beesha keensatay. waxaan sugaynay in kursigaasi lagu tartamo, codna lagu kala baxo, ciddii ilaahay guuleeyana tolka ay madax u noqoto. tii ma dhicin sida aan ka warqabno. waxyaabo badana meesha inaga soo gaaray. ergooyin mataqaanaa ee 51 aan ahayn in la soo bedeshay ayaan wararkaas aan maqalnayoon oo noola cadeeyay. maanta oo ugu dambeysay waxaa la soo gaartay maalin 19 bishan hadda aan ku jirno mar loogu talagalay maalintaas doorasho in la sameeyo. waxyaabo ayaa dhacay oo mataqaanaa isdaba maris ah. tiina kursiga sidaas darteeda loo joojiyay. sida aan dad xog ogaal ah ay ii soo gudbiyeen oo ka mid yahay nabadoonka maanta oo ugu dambeysay 51 sharciga ahayd ee beesha ku heshiisiyo la qoray waxaa maanta la geeyay 8 bas inay ka tagtay oo 43 kale intana dad meelo kale ka yimid ay yihiin. sidaas daraadeed waxaan ka codsanayaa dowlad goboleedka Jubbaland ee kursigaasi mataqaanaa uu ag yeelo madaxdeeda iyo guddiga doorashooyinka dadban ee heer gobol iyo midka heer federaalba arrintaasi in ay cadaaladda eegaano sida ay shacabka ama jifadaasi ay wax u soo xulatayna loo tixgeliyo. 51 ay soo xulatay keensatayna ay u codaysay 3 musharax ee walaalaha ah. taas ayaan aad iyo aad kaga codsanayaa. maadaama Raage u shaqayn weeday in ergadii wax ka bedelo waxa uu soo saaray isla November 19 2016
waraaq looga joojinaya Maxamed Mukhtaar u tartamidda kursiga lambar hawa xariijin janjeerta eber 94 xariijin janjeerta jala raage waxa uu Maxamed Mukhtaar ku eedeeyay inuu laaluush siiyay ciidamada amniga taas oo keentay in maalinta doorashadii la hakiyo si kastaba ha ahaatee doorashadii waxa la qabtay 23 November 2016 iyadoo Maxamed Mukhtaar iyo ergadii rasmiga ahaydba aanay ka qayb galin 12 December 2016 waxa soo baxday raage inuu ka laabtay eedeyntiisii ahayd in ciidamada amnigu laaluush ka qaateen Maxamed Mukhtaar raage isagoo ka hadlaya xaflad sagootin loogu sameeyay Kismaayo xubnaha labada aqal ee Jubbaland waxa uu yiri waxaan hortiina raaligelin buuxda ka bixinaynaa erayo naga soo yeeray ee sheegayay in ciidanka amnigu qaateen laaluush hortiina inaan raaligelin ka bixino eray ama hadal marsii horeysay naga soo yeeray oo la xiriiray inaanu laamaha amniga la xiriirinay inay musuqmaasuq ku taxalluqeen arrintaasu arrin runtii ilduuf ku dhacday bay ahayd waxaana jeclahay hortiina inaanu raaligelin ka bixino hadalkaas sida qaladka nooga dhacay maadaama raage isagu laftigiisu qirtay inuu qaldamay isla markaana ergadii uu codsaday 23 November 2016 kursiga aanay ahayn ergadii saxda ahayd isla markaana si sharci darro ah loogu diiday in Maxamed Mukhtaar tartamo waxa soo baxday guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka in kursigaas uu laalo